بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبدأ الصوماليات وحن أقدر كمباني توجا شركة توجا والصومالي ودك دبدي سكون مغنيات العكفر بدان كدعدي وكورستي هدنا وصور دردقتي inay dhacdo sidoo kale Soomaalida waddanka gudihiisa ku nool. Shirkaddan waxaa lagu magacaabaa One Coin One Life. Waa shirkad laga aasaasay arigaas Bulgaria, waddanka Bulgaria la yiraahdo Europe ka tirsan. Dadka aasaasana yihiin dad tuuga ah oo lagu yaqaan inay tuuganimo ku shaqeystaan. Waxaan falaqayn doonaa haddii Ilaahay yiraahdo shirkaddan magaceeda haddaan ku celiyo mar labaad waxaa la yiraahdaa One Coin One Life. Magacyo fara badan bay sheegtaan laakiin labada magac baa ugu caansan. Magacyo kale oo sheegtaan waxaa kamid ah One Academy inay yiraahdaan, sidoo kale One Forex, One One Family wax noocaas oo kala oo tira badan one ayay sheegtaan. Shirkaddan iyada ah waxa aasaasay naag Bulgarian ah oo lagu magacaabo Dr. Ruja Ignatova. Naagtani waxay haysataa dhalashada Germany, waddanka Jarmalka, laakiin asalkeedu waa Bulgaria. Waxay aasaastay company-gan dhamaadkii 2000 ama dhexbartankii ilaa dhamaadkii 2014. Waa muddo hadda laga joogo 5 sano. Xafiiskooduna wuxuu ku yaalaa waddanka Bulgaria. Naagtan waxaa la aasaasay company-gan nin lagu magacaabo Sebastian Greenwood oo Hollandeys ah. Waxay sheegataa shirkadda tani in ay member ka yihiin ama xubin ka yihiin dad lagu qiyaasay 3 milyan iyo bar oo adduunka daafiisa ku nool oo wadamo fara badan ilaa 100 waddan ka badan ay ka ururiyeen ay u sharaxeen oo lacag ka qaadeen. Waxaana la og yahay sidoo kale oo meel walba lagu qoray aysan kirin inay urursadeen dadkaas ay ka urursadeen 4 bilyan iyo bar lacag u dhiganta 4 bilyan iyo bar dollar ayay urursadeen 5 sano ay ku jiraan hawshan ayada. Welina way socotaa, waa company weli lacagta ururiskii wada. Waan ka hadli doonaa insha Allah تعالى كمريغان waxa uu yahay si fiican baan u faahfaahin doonaa annagoo uga digi doona Soomaalida ku nool dalka gudihiisa iyo kuwa dibadiisaba cadeena doona kamarigaan iyo xaqiiqdiisa waxa uu yahay. Waxaan marka hore ka hadli doonaa waxyaalo fara badan baan ka hadli doonaa insha Allah ta'ala annagoo barnaamijka u kala qaadi doona dhowr qaybood, laga yaabo inuu noqdo 2 qaybood, laga yaabo 3 qaybood inuu noqdo. Insha Allah waxaan ka hadli doonaa marka hore naagta aasaastay kamarigaani waa tuma magaceed maxay tahay, maxay shaqaman jirtay, shaqadeedu maxay ahaan jirtay kamarigaan intaysa aasaasin ka hor. Waxaan kaloo ka hadli doonaa kamariga kani sidiisa company product lehba product ismu leeyahay, badeecad uu leeyahay laga gato. Hadduu badeecad lahayn wuxuu kale leeyahay service buu bixiyaa, badeecad uu leeyahay service buu bixiyaa, ma company logistic ka shaqeeya muxuu yahay, xaqiiqdiisa dhabta maxay tahay. Waxaan arki doonaa company-gan xaqiiqdiisa dhabta waxay tahay. Sidoo kale waxaan indhayn doonaa oo baari doonaa company-gan website-ada ay leeyihiin iyo waxa ku qoran iyo waliba domain-ka website-kooda laga soo daayay oo ay ka diiwaan galiyeen. Company-gan xaqiiqdiisa baan u dagi doonaa, waana arki doonaa inuu yahay company-gani company xaqiiq wax kala aan haynin laakiin xaqiiqdiisu ay tahay company ku shaqeysta systemka ama qaabka lagu magacaabo MLM oo ah multi level marketing oo macnaheedu yahay qaab ganacsi wax la oran karo maaha runtii, laakiin waa qaabka ay Soomaalidu u taqaan chief oo shaqada oo ah in dadka la isu diro oo la yiraahdo meeshan hanti baa taal, waxba yaal badeecooyin, waxba yaal la gadanayaa, aduu gado oo xubin noqo oo member noqo. Markaa noqotay kadib dadka la raadi, dadka kale maartii lacagtay keenan 10% baan kaan siin, dadka la sii raadiyaan, dad badan ka farcamaan adiga midig iyo bidix kaaga farcamaan kadibna saas commission kugu socdo. dadkii marka isku diraan basically dadka ay isku diraan ayaga dhexdooda inay iskeen keenaan lacagna iska soo ururiyaan, lacagtana aakhirka waxay ku dhamaataan waa arki doona meesha ku dhamaan. Marka waa qaab dadka lacagooda la isku wareejinayo. Waan arki doonaa company-gan lacagta ay qaataan ma laga soo celin karaa mise lagama soo celin karo. Waan arki doonaa. Waxaan kaloo arki doonaa 5 sano ay soo jireen maxay faa'iideen, maxay khasaareen, maxaa laga faa'iiday, yaas wax ka faa'iiday, yaas khasaaro ku jira. Waxaan kaloo arki doonaa company-gan meelaha uu xafiisyada ku leeyahay, haduuba leeyahay ma xafiisyo leeyahay iyo xafiisyadaas waxa ay qabtaan. waxaan kaloo arki doonaa insha Allah ta'ala oo ka sheekayn doonaa company-gan dadkii soo maray ee madaxda ahaa iyo meesha ay ku dambeeyeen. waxaan kaloo arki doonaa haddii Ilaahay nafta noo daayo insha Allah ta'ala caawa ka hadli doonaa xaaladda company-ga laftigiisa haddeer la joogo maanta oo la joogo maanta oo taariikhdu tahay 13 bishii August 2019 oo aan duubayno warbixintan. waxaan fiirin doonaa ayadana oo dul istaagi doonaa company-ga sidiisaba ama shirkadda tani sideedaba xaaladda maanta ay ku jirto maxay tahay, ma tahay xaalad ay shaqeynayso mise waa shirkad waa hore burburtay oo laga kala tagay. waan arki doonaa. waxaan arki doonaa kale sidoo kale xaaladda dadka Soomaalida ah ee company-gan ama shirkaddan wax ku darsaday ee loogu sheekay inuu yahay shirkad wanaagsan oo wax laga faa'iidi doono
oo laga taajiri doono milyaneer laga noqon doono dadkii lacagaha ku darsanayay 5 sano la soo dhaafay iyo xaaladooda waxay ku sugan tahay maanta ayaan ayadana dul istaagi doona insha Allah ta'ala intaas iyo in badan hadaan soo xasuusano insha Allah ta'ala intaan hawsha wadno ayaan insha Allah ka hadli doona caaw qodobka koowaad waxaan ka hadli doona insha Allah ta'ala waa tuma Dr. Ruja Soomaalida waxay tiraahdaa qofka aad kabaha ka tolanaysid kabiisa la eega yani qof isaguba kabala oo kabihiisu ay rafaadsan yihiin dad tiraahdaa kaba ii tol yani waad khaldanta Dr. Ruja saan hore soo sheegnayba horta waxay ka dhalatay reer sumcad fiican aan lahayn hooyadeed waxay ahayd islaan maafiya ah ee company dhacday oo lacag loo haystay ahayd ayada iyo walaalkeedna oo aan arki doono isaguna waxa insha Allah isaguna waxa uu yahay waa laba qof oo maafiya ah ee waligood ku shaqaysan jiray qaabka maafiyanimada iyo dadka xoolahooda in la dhaco naagta tani waxay sheegatay inay tahay doctor macna PhD shahaada inay wadato kuna baratay wadankan Jarmalka dhaqaalahana ay baratay ay sheegtaa naagta tani waa naagta aas-aastay company-gan lagu magacaabo One Coin One Life intay aasaasin ka hor waxa ay ku jirtay company la yiraahdo Prosper Ltd oo ka shaqaysta hawsha la yiraahdo MLM-ka element promoter bay ahayd MLM multi level marketing waxyaalaha hadda aan ka soo sheekaynay oo ah dadku inay iskaan keenaan qof keeno ayadoo meeshan wax badaacaysa oo dadka in la lacag keena waxba liinay galinaya waxba gadanaysaan hawshaasi ka shaqayn jirtay kamargaasina u shaqayn jirtay dadkana ugu yeeri jirtay inay soo galaan Prosper Limited ama Prosper Ltd ba u shaqayn jirtay sidoo kale maadaama ayadu ay aas-aastay kamargan One Coin One Life waxaan hore u sheegnay in uu kala soo qayb qaatay aasaastaankeeda nin ay runtii aad isugu dhawaayeen oo la yiraahdo romantic babes la ahaayeen yani dad aad isugu dhow ahaayeen meelahaas la galgala meelahaas la aadaada oo isla fisqigooda isla tunta ninkaas isaga Sebastian Greenwood baa la yiraahdaa isaga laftigiisu wuxuu ahaa nin wuxuu lahaan jiray website dadka lagu dhaco oo tuuga ah oo la yiraahdo SiteTalk.com website la yiraahdo oo ka shaqeysta waxa la yiraahdaa BBC macnaheedu waa pay per click macnaha wuxuu lahaa website scam ah dadka lagu dhaco oo waxyaalaha yiraahdo waxbaan xayeysiinaa combination wax xayeysiinaa dadkuna hadii anaga soo galaan website-keena oo ay click-ta ay ugu dadaalaan inay click siiyaan meelaha xayeysiinta tabtan lacag baan siinayna dad farma buu saas ku dhacay oo kamarigaas uu lahaan jiray ninkaas isaguna labada qof markuu isla aasaasin laakiin waxa asaaska dhabta iska la naagta ninkana dabcan way kaashatay labadaas meelood bay ka kala yimaadeen asalkoodu waxay ahaayeen laba meel oo tuuga ka kala yimaadeen dabcan dad tuuganimo isku bartay Dr. Ruja kadib iyo Sebastian Greenwood labaduba waxa ay ku biireen markii labadii kamari hore uu shaqayn jiray ka soo tageen waxay ku biireen company shirkad uu aasasay laga aasasay wadanka Hong Kong soo saartay tiri waxaan soo saarnay lacag tan digitalka ee lagu magacaabo cryptocurrency lacagta internetka hadda ku shaqeysa bitcoin ku hogaamiyo lacagaha faraha badan maanta ee 2000 ka badan ayaan lacag kamid ah soo saarnay bay yiraahdeen lagu magacaabo Bitcoin ninkaas markaas Hong Kong jooga niman dheer ahaayeen tuuga ayaguna systemka ku shaqeysan jireen waa isla systemka lagu magacaabo bay'ul harami ama shabaki al-harami la yiraahdo dadku inay iskan keenaan dadkana waxay ka gadi jireen coinkaas ama lacagta waxay ku magacaabeen internet ku shaqeysta ee digitalka ee Bitcoin la yiraahdo kamarkaas wuu fashilmay way ku Dr. Ruja iyo ninkan Sebastian Greenwood labadaba way ku biireen hayesha wuu fashilmay kamarigu meel badan ma gaarin Bitcoin kadib waxay labadoodaba u wareegeen company kale oo isaguna soo saartay coin kale oo la yiraahdo BNA kadibna ayaduna waa fashilantay wax yar kadib lacagtaas way socon weysay kamarga Bitcoin hada dib ugu laabano Bitcoin waxay aad ugu dhaceen dad fara badan oo Chinese ay aad ugu dhaceen oo yiraahdaan lacag cryptocurrency soo saarnay lacag ku darsada waa maal gashada kadibna wixii markay socon waayeen dadkii Chinese ka ahaa waa la qabsaday dawladda China waxay ka xirxirtay dad aad fara badan bay dadkan ka xirtay lacag hanti fara badan oo kala wareegtay waliba hantida ay la wareegtay waxa kamid ahaa ninka lagu magacaabo Sebastian Greenwood ee Hollandeeska ee One Coin wax ka asaasay hanti badan oo lahaa oo $2 milyan ah ayay China isku la wareegeen ayuu ku eedanay inay yihiin tuugo scammers oo dadka dhaca taariikhda sagaaban markaan uga soo gudubno intaas waxa bilowday in la asaaso kamarigan kale oo la yiraahdo One Coin One Life kamarigan waxa la aasaasan hore sheegnay 2014 waa company hadda 5 sano jira waan arki doonaa insha Allah kamarigan waxa uu yahay san hore ballan qaadnay waxa ku bilaabanay inta hadda uga soo gudubno naagta iyo taariikhda yarta aan ka sheegnay ee kamariga asaasatay iyo ninkan kale ee la waday hawsha iyo meelaha ay soo mareen وأيقون dadka ay ku soo dhici jireen intaysan kana asaasin waxaan hadda u gudbaynaa balkamanigan website-adiisa wax qaabkay u dhisan yihiin iyo qaabkay yihiin sidaan ognahay hadii shirkadii ay ganacsi ku jirto website bay samaysataa website-kana waxa laga dheehan karaa ama laga arki karaa
shirkadda waxa ay tahay iyo waxa ay qabanayso oo faahfaahsan waxaa laga dheehan karaa meel contacti ah oo maartay lambar lagala xiriiri karo email lagala xiriiri karo kameriga meesha uu yaalo xafiiskiisa meesha ku yaalo cidda iska register gareysay kamerigan website-ka cidda iska register gareysay waxaas dhan baa laga ogaadaa nimanka kani 1.1 life domainkooda haddaad gashid ay iska diiwaangeliyeen oo website-kooda ay ka register gareeyeen waxaad ku arkaysaa in ay qariyeen cidda ku register gareysan website-ka way qariyeen magaciisa mana aysan sheegin website-kana waxaa la register gareeyay June 23-keedii 2014 way iska caddahay marka way muuqataa inay wax qarinayaan dadka tuugadaani markasta wax lagu yaqaan inay qariyaan website-dadooda iyo cidda ka dambaysa iyo cidda ownerska iyo cidda iska way qariyaan kuwana typically sidii baa ku cad website-ka laftiisa hadaa usoo gudubtid way leeyihiin meesha la yiraahdo about us page macnaha page-ka hore oo about-ka la yiraahdo oo shirkaduhu markay website-dada furtaan ay uga hadlaan macluumaadka guud ee shirkadani waxay tahay ku soo bandhigaa sidoo kale kuma aysan sheegin cidda iska leh oo dhabta ah oo manager-ka ka ah حتى ويب سايت كعدو ماجر كا شركة أي شيء ممكن ولا في عدة سكلة عدة أساستي ما أي شيء جيا ويقارنيا كو أركي ميس كلي وحا كو أركي ساميشاس وحياله ونسك حيسين منبر نقو نحاجة تاباكت شيئا يعني وحبرشة حرموي وحبرشة نجا كذا marka tكون بهليس waxyaalo noocaas oo kala iska xayeysiin ah intaas oo qof baan ugu soo biirtay intaasaan nahay waxyaalo noocaas oo baa ku arkaysa wax kale oo inta ka siyaadsan oo ku arkaysa ma jirto website-ka sidoo kale hadaa website-ka baartid ilaa adduunka maanta waa la isdaba socdaa website-da waxaa jira shirkadaha kale website-dadooda aad ku baaraysid oo aad ku ogaanaysid shirkadan waxay tahay website-keedu مثلا hadaad gashid website-ka la yiraahdo scamadvisor.com waa website ee aad ku qortid 1.1 live wuxuu siinayaa rate aad iyo aad u hooseeya oo ka turjumaya inay yihiin website aan isku hadlayn karin oo scam ah oo tuuga ah sidoo kale website-kan laftigiisu onecoin.eu way leeyihiin website-ka isaga Mareykanka lagama geli karayo waana arrin ku tusinaysa tuhun kale inay yihiin niman tuuga ah oo isqarinaya qofka haduu website-kiisa qariyay xaqiiqdiisa adduunkana meelo badan aan laga geli karaynin website-ka wax ku qoran oo faahfaahin aysan jirin meesha wax u socdaan meesha wax u wadan aysan ku qornayn waxaad garan kartaa inay tahay shirkadaas oo shirkad tuuga ah ee aan xaqiiq ahayn website-ka xataa ma leh contacts wax la yiraahdo contact number lagala xiriiro oo qofku si toos ah u garaaci karo intuu garaaco loo jawaabaya halow la oranayo ma laha sidoo kale ma laha email shaqeynaya ma laha haddii xataa marka qaabka email soo dhigaan emailkii mid lagaga soo jawaabayo oo shaqeynaya ma ah haddaa dan ka yeelatay sida ku dhacay dad badan oo Soomaali ah dan markay yeesheen waxay ku khasabtay inay duulaan ay aadaan waddanka Bulgaria ee xafiiskooda tagaan ay dhahaan war waxaan la xalay dhibkaan haysta waa dad xiriirkeedu qaab noocaas uu yahay website-kooduna qaab noocaas loo dhisan gareeyay way marka saan hor u soo sheegnay Soomaalidu waxay tiraahdaa qofka aad kabaha ka tulanaysid kabisa la eega dad ay website-koodu saas yahay weeye asalkooda horena tuuganimada aan soo sheegnay ku shaqaysan jiray waxaan hadda ay meeshan ku hayaana waa arki doonaa insha Allah taala inta soo gudbo waxaan soo dagayaa qodobka kale oo ah aragna website inay leeyihiin aragna magac inay leeyihiin soo aragna inay yihiin dadka furay magacyadooda waan soo sheegnay meeshay dagay dadka kaniisadooda maxay ka ganacsadaan ganacsigoodu muxuu yahay ilaa marka aad meel lacag ku darsanaysid dhowr arrimood midkood bay noqonaysaa waa inaad tahay shirkad products leh badeecay leedahay wax soo saar bay leedahay wax ay soo saartay iyadu oo soo warshadaysay oo laga gadanayo waa ku biirisid ama shareholder ka noqonayso share ku darsanaysid waa inay noqotaa haddii taas ahayn waa inay noqotaa shirkad service bixinaysa oo sida Google oo kale sida Microsoft oo kale sida Facebook oo kale shirkad macnaheedu service bixinaysa oo servicekeeda aad saa ugu biirisid oo nagu soo biir ku leh oo share ku lacag ku darsanaysa oo shareholder ka noqonaysid oo saa marka lacagtaada ugu darsanaysid ama soo inay tahay shirkad logistic qabato oo ayadu labadaas midna aan qaban laakiin u dhaxayso hawlo noocaas qabata shirkadu waa inay tahay shirkad wax lagu hagaagi kara way gadayso oo lacagta ku dhiiban ila meesha lacag baa la dhiibanaya qofka Soomaaliga ah lacag buu dhiibanaya dadka shirkadan xayeysiinayahay waa inay ku sheegaan lacagtaas waxaad u dhiibanaysid waa inay ku sheegaan hadaba ma laha product kamarigaan ma laha shirkadan ma laha products badeeca ma laha service shaqay bixiyaan ma jirto wax ay leeyihiin haba yaraatee oo lacagta qofka looga qaaday ma jirto oo kaliya waa company saan hor soo sheegnay ku shaqaysta tifo shaqa wax la yiraahdo dadka lacagooda la isku wareejiyo dadka dalaalinta commission laga siiyo waa inta kaliya ma laha marka kamariga waxa kaliya muxuu leeyahay kamariga waxa uu leeyahay oo xaqiiqada dhabta ah baan hada dul istaagaya kamariga xaqiiqada dhabta ah waxa uu gadayo dadka gadayo ayaga qortay website-kooda ku qoranta website-kooda waxa ku qoran waxaan anagu diibnaa oo dadka ka gadnaa educational packages ku wax kala ma waxa weeye xirmooyin waxbarasho dadka ka gadnaa
afcad warcad oo clear ah bay website-kooda ku qoreen annagu ma gadno crypto ma gadno laakiin waxaan gadnaa waa xirmooyin waxbarasho oo macnaheedu yahay markaan lacag ka qaadno xirmooyin waxbarasho weeye waxaan u ka gadayno waxbaan ku baraynaa adduunka sida cryptocurrency u shaqeyso cryptocurrency maxay tahay waa arki doonaa insha Allah waa sharxi doonaa sida ay cryptocurrency u shaqeyso ayaan in baraynaa oo maartay xirmooyin baa gadanaysaa kala qiimo duwan kan ugu horeeya la yiraahdo trader kan ku xiga la yiraahdo pro trader kan ku xiga la yiraahdo hebel kan ku xiga la yiraahdo tycoon aduu magacyo kala bixiyeen package-yada ama xirmooyinka waxbarasho ay gadayaan waxay ku kala fiican yihiin bay ku leeyihiin mid walba ku ka macluumaad badan yahay waa ka qaalisan yahay amal weey typically qaabka u shaqeeyo intaas waay wax kale meesha ku hayaan mal waxay hayaan waxbarasho waxa gadanaysaa back xirma gadane xirmada marka gato waxbarasho kadib waxay ku siinayaan wax li ay ku magacaabeen promotional token bay ku siinayaan oo lacagta internet ku shaqeysta ayaga ay ku sheegeen oo ay dhahan waa cryptocurrency tokenkaas waxay ku leeyihiin meel baa u dareysaa mining ah waa la soo qodayaa coin baa loo soo badalay lacag rasmi ah soo daacay bay noqonaysaa lacagtaas haysanaysaa lacagta marka haysata lacagtaas maartay mustaqbalka wax ku goyn doonta ayada adduunka uga noolaan doonta ayada millionaire ku noqon doonta lacagtaas wax ku tari doonta waa arki doonta lacagtaas inay lacag dhab tahay waxay tahay waa arki doonaa insha Allah marka website-kooda marka qaarkood waa confusion macnaha confusion baa ku jira waxa ka jira ismaandaaf iyo iska hor imaad hadal iska hor imaanaya oo isburinaya ayay leeyihiin mar waxay ku oranayaan waxaan gadaynaa anagu waxbarashaan gadnaaya ma gadno cryptocurrency marna waxay ku leeyihiin coinkeena waxa la yiraahdaa cryptocurrency-ga ah one coin baa lagu magacaabo magaciisa waa lacag cryptocurrency ah adduunka qabsan doonta bitcoin killer ah bitcoin maartay dhaawici doonta bitcoin ka kormari doonta oo lacag fiican noqon doonta lagu taajiri doono oo millions ka heli doontaan bay marna ku leeyihiin marka waa arin cajiib ah yani dad nooca u shaqeysta way hadalada iska hor imaanayaan markasta wax ay ka shaqeystaan waana in sheegay service-ka dhabta ay hayaan waa waxbarashadaas waxaa jira haddii xataa fiirisid waxyaalaha waxbarashada ah ay gadayaan hadaa runtii u sii fiirsatid saan hore usoo sheegnay kamana tuuga waay waxaan tuuga ahayna ma yaqaan waxaan tuugnimo ahayna ma yaqaan waxaan been ahayna ma yaqaan kelmad run ma yaqaan package-yada ay gadayaan waxbarashooyinka ay ku sheegeen waa kuwa la soo dhacay ama si laga soo koobiyay website kale wax ay ugu qorteen ma waa kuwa la soo dhacay oo professoradii laga soo dhacay baa la helay qaarkood oo qaarkood Mareykan yihiin oo la weydiiyay oo la yiri waxaan meedikaas kale oo yiri maan ma lihin waana la ka dhacay anagu maana fasaxin cidna maana fasaxin waa dad waxay qoreen ayay soo ururiyeen isku soo ururiyeen waxna google-ka ka soo ururiyeen wixii bay isku amaamudeen oo ka dhigan wax buug amal ah wixii bay marka dadka gadaya way xataa ay u leeyihiin ma kaaga si daranta waxa ay leeyihiin waa gadaynaa waxa ay ka hadlayaan marka fiirisid xirmooyinkan waxbarasho ka hadlimayaan cryptocurrency xataa cryptocurrency waxay uga hadlayaan marka fiirisid wax yar bay ka hadlayaan boqolkiiba waxa la oran karaa 20 waxa la oran karaa boqolkiiba 30 ama boqolkiiba 20 bay ka hadlayaan laakiin inta badan waxay uga hadlayaan wax kale on cryptocurrency shaqo ku lahayn waxay ka hadlayaan forex suuqa weyn forex ka leeyahay lacagaha adduunka lagu kala gagadiyo maartay ribada iyo balaayada ku jirto oo la isla yaqaano forex kaas bay ka hadlayaan waxay kale oo ka hadlayaan financial dhaqaalaha adduunka ee qaabka u shaqeeyo in qaabka lacagaha loo faa'iido qaabka loo khasaaro si khasaaraha la iska ilaaliyo wax noocaas bay ku wareeganayaan ma aha marka wixii xaqiiq dhab xataa ma wax crypto ku saabsan ma waa wax la soo xaday cryptona aan ahayn waana la soo xaday sidii qaab cryptona loo sharixi maaye si kala loo sharaxaya taas waa sida dhabta xaqiiqda dhabta ah ee waxyaalaha ay ka gadi doonaan qofka Soomaaliga oo dhageysanayo ama daawanayo marka lacagtaada dhiibatid waxaad ku talagalaysaa lacagtaada inaad ku bixiso waxa aan ka soo hadalnay oo ah xirmooyin waxbarasho laakiin waxaa jira arrinta ka duwan dadka dalaalinta ayaga u ah kamargan say qaabka ku shaqeeyo waxa way horta wuxuu leeyahay dad la yiraahdo leaders ama hogaamiyayaal anaguna aan u aqaan inay yihiin dalaaliin beenaalayaal ah waa dad dalaaliin ah oo beenaalayaal dadka noocaasi waa dadka marka la diro oo la yiraahdo dadka lacagaha ka soo ururiyo waana dad askar amal ah oo ayaga u rabaysan ay rabaysteen dadkana been ku afuufa dadka lacagta ka soo qaadayaan been bay ku afuufaan حتى waxa website-ka ku qoran uma sheegaan intooda badan markii qofka u yimaadaan waxay ku oranayaan waxaan nahay company shirkad cryptocurrency samaysay crypto lagu magacaabo OneCoin bay leedahay cryptadaas oo lacagteedu maanta waa qaali lacag meel fiican bay maraysaa $30 bay maraysaa halkii coin $30 buu marayaa waa hadii aad ku darsatid maanta wax ku darsatid waxa lagu siinayaa intaas milyan oo dollar ba mustaqbalka heli karaysaa suuqa markaan nimaano adduunka public aan noqono oo aan suuqyada waaweyn crypto lagu kala gato aan nimaano oo aan coinkeena keensano ama lacagteena keensano
waxbay goyn doontaa millionaire baa noqon doontaa bitcoin way ka sare mari doontaa wayna dili doontaa sidoo kale waxaan leenahay meel lagu magacaabo Deal Shaker suuq weyn oo aan leenahay oo lacagtaada ay u adeegan karto wax uga gadan kartid oo Deal Shaker lagu magacaabo qofka marka niyad hamiga ka soo reedayaan iyo niyada ilaa qofku uu maartay uu noqdo qof yani gabigiisu cirka maraya ee loo sheegay inuu millionaire noqonayo xilli dhow dadka dalaalinta marka qaab noocaasa ay dadka ku soo xirigeliyaan beentaas bayna ku afufaan intooda badan oo ma ay sheegaan waxa la gadanayo meesha lagu qoray oo website-ka ku qorani ay tahay wax barasho kali ah ee coin-kan uu yahay wax iska daba tuur ah oo marka wax barashada gadatid laga soo daba tuurayo hadaa rabtidna aad qaadanaysid hadaa rabtidna ka tagaysid dadka uma sheegeen dalaalinta nooca uma sheegaan waayo way ogyihiin hadii dadka aad u sheegtid oo tiraadid maxaa iga gadaysaa lacagteeda maxaa iga qaadanaysaa haday u sheegaan xaqiiqada dhabta oo jirta ee ah inay gadanayaan xirmooyin waxbarasho ay dadka gadayaan dadku waa ka tagi lahaayeen cidna uma soo fariisateen cidna lacag ma siiseen sidaa daraadeed waa dad noocaas ku shaqaysta wey waan soo aragnay marka inaysan lahayn wax product ah waan soo aragnay inaysan lahayn wax service ah waan soo aragnay waxa xaqiiqada dhabta ay leeyihiin inay tahay waxbarasho ay isku soo maamudeen oo cidna hadda aysan u baahneen oo old oo laga tagay oo ka sheekeynaysa forex oo ka sheekeynaysa adduunka dhaqaalihiisa u shaqeeyo xoogaa yar cryptocurrency ka sheekeynaya marka dhibka jira wuxuu yahay u fiirso maxay tahay sababta dadka dalaaliinta oo liidharada lacagta dadka soo ururiya ay dadka beenta ugu sheegayaan website-koodan waxa wax ka duwan loogu qorayaa kamariga sidiisaba shirkadu waa shirkad nooca u samaysan way waa shirkad u samaysan dadka inay khalado oo been u sheegto waxaan arki doonaa marka inta haddaan uga gudubno shirkadan iyo productiga haysa waxa uu yahay xaqiiqda ah waan u gudbo doonaa insha Allah ta'ala waxyaalaha kale ee ku xeeran shirkadan ayaan ayadana faahfaahin doonaa insha Allah ta'ala waxaan ugu soo xigi doonaa waan ka hadli doonaa insha Allah ta'ala shirkadani ma tahay shirkad cryptocurrency samaysatay ama kamid ah shirkadaha cryptocurrency-ga soo samaystay qodobkaasaan dul istaagi doonaa insha Allah ta'ala wixii aan ka faahano inta kalena mar kale ayaan ka dhigi doonaa qaybo kale cryptocurrency maxay tahay marka hore halkaas ayaan ku joojinayaa qaybtan qaybaha kale ayaan sii wada doonaa insha Allah